hadda kaligaa hadday noqoto aragtidaada sheeganaya aniga se ila tahay dee cafintaan waxbaan ku khaldaraa karaa wasaaraddu iyadaa involved ku ahayd iyadaa waaye arag ku ah marka meeshii iyadaa tagtay waan rabay aniga su-aalaan diyaarsada inaan ka faa'iidaysto iyaga oo waxa aanan ogeynay og yihiin inay aninkana noo sheegaan iyagana aan ka ogaano doodaan marka oo ku saabsan deen cafinta doon cafintu maxay tahay intaan teena gaarkaa ee soomaalida u soo naqano deen cafinay ama tan laga hadlaayo maxay tahay okay deen cafintan nuuca ay tahay waxaad dhuminee sovereignty-ga isticmaal nooc cusub had geli su-aashu waxaa waay seed u gale marka isticmaalku maaha in ciidamo ay ku joogaan kaliya in dayn cafintan wadamo badan oo kuwaa la yidhaha wadamada aad u liito oo fakriga ah waxaa la yidhi daynta ha laga cafiyo waxay soo bilaabatay 1988 shirki ka dhacay Toronto oo G7 aan cafinaa la yidhi wadamadaas dayntooda boqolkiiba 33 ha laga cafiyo hala wada cafiyo lama dhihin هذا waxay soo jiitatay waa 88 sanad sanad ka dambeeyo khreedka laga cafinayo hal kordhiya leeyo oo wax badan laga cafiyo fikirka noocaas markuu bilowday waxa la yiri strict conditions marka shuruudo adag hal lagu xiro waa la soo joogay qoliya oo la yira anti debt activist dad diimaas dadka oo laga soo celina waa loo cafinayo la diidan oo dad kale dib u leedahay hal deyntu wada ka soo kori lahay ina diinta ku daldasho ka badan aad dul saarto iyagay dhib u tahay aan ka dhaafno dadkaas waxay u doodaan sida groupkan oo kala waay ururada civil society haweenka hatta ururada diinta ku jira oo la World Bank iyo IMF hana dhaafaano ay dawladooda culays ku saaraan markay ogaadeen waxa uga imaan kara wadankooda maxaa xigay marka حتى باللوجو هو مركز فيرسين لو كون يسقال بقول يسديت اللحدي أي نقلقا قاس باللعبين وولد بانك إذا لفت جديد ندب دين عفس كان ما مر منيره العالم ما رميس لكن ما حدا متكدي وحي بدلين بوزيشن كود فكر كأي قبل وابدل ليه وحكى عبسني مورالي من دين يقول لي كعفين اللي وعيب طلبنا internationally global financial system ay dhibaat soo gaareen oo caalamkii oo dhan dhaqaalihiisa oo financial ka dhibaat soo gaareen darteed waa ogolaanay mashruucaas waa labadii IMF iyo World Bank oo iyagu diidanay markaas maxaa soo xigay marka waxay leeyihiin deynta oo dhan ma la cafinayo laakiin qayb yar laga cafiyo tijaabo ah waa soo socotay wadamada oo deynta lagu lahaay oo deynta badna ay ku jirtay waxay bilaabeen markii ugu horeyso shuruuda koowaad ila saxiixdo heshiisaad waxa la saxiixay IMF ta la saxiixay waxa aqbalay siyaasadda Washington IMF iyo World Bank ay dejiyeen inaad ogolaatay 3 sano gudahooda saxiixay warqadaas waa saxiixnay warqadaas waxa la yiraahdaa Poverty Reduction Strategic Power warqadaas oo BRSB ina laga fiirsano waqta laakiin waxay noqotay mar hore wala saxiixayada anaga kalima wadon badan waa saxiixa marka daba sharaxyaal waa soo karo maqasheen oo baleena ninka kitaabka ku dhaaran kan xooga dhawa isaga dhaartay habeenkii Febar waa saxiixay waxa xasuusta kitaabka beenta ah sharaxyaal hadda soo karo warqadaas waana soo kartay anaga kalima ana wadamo badanna waa soo kartay macnaheedu maxay tahay waxay tahay wadankaas sovereignty-giisa madax banaanidiisa marka loo fiiriyo go'aanada uu gaari karo IMF iyo World Bank waa dhuminaa calankaaga iyo ciidankaaga xuduudaada waxa waa leedahay kaliya kalima laakiin awoodii sovereignty-ga madax banaanida ee dawlad ahaan u lahayd lahayd ay marka hore u dhuminaa meesha si kaaga dhuntay waa dhibaato weyn yes waxaan rabaa inaan su-aalta ka gudbin waxaan rabaa inaan
سؤال كويتيو فحشرتني إن هذه إيشيس كاركتر IMF أما international financial institutions ka in ay sovereignty dalkaasi uu lumay waxaan ognahay dalal badan oo burbur u ku dhacay inay IMF-ta iyo World Bank-ka iyo hay'adaha kale ee mucaawanada amaba bixiya gargaarka ay dhammaantood loo baahan yahay dalkaasi inay la xiriiraan ay tahay waxaa ka mid ah dadka soo qaadno waddanka waxaa ka mid ah hadda uu ku guuldareystay suudaan ka mid ah waxaa ku guuldareysatay zimbabwe ka mid ah marka su-aashu waxay tahay mubarakay dalkan maadaama uu ka soo baxayo colaado ma ayaan u baahnayn in uu ku xirmo isla markaasna uu ka shaqeeyo marka xaggee iska qabanaysaa marka leedahay sovereignty lumayo dalkan wuxuu u baahan yahay daynkii uu bixiyo wuxuu u baahan yahay hadduu bixin waayo inuu helo system uu adduunka dib ugu laabto hadda waxaa la qabtay shaqo badan ay dowladda qabatay waxaa bilaabay dowladdii mudane xasan sheekh maxmuud meeshii kasii aqoqaaday meela maanta soo gaarsiisay dowladda oo hadda waxaa laleeyahay waxay eligible u tahay amaba in la tixgeliya u tahay sida daynkii lagu dayn lahaa marka xagee iska balanaysa adiga waxaa leedahay sovereignty-ga lumayo marka dowladdan isma bixin karto dhaqaale ahaan waxay u baahan tahay kaalmo caalamiga waxay u baahan tahay inay hesho deeq waxay u baahan tahay inay hesho dhaqaale barnaamijyadaas marka soo socday waxaa leedahay wax dana ugula jira dalka oo ay ka mid tahay barnaamijka la yidhaahdo staff monitoring program oo muddo soo socday marka professorsi bal nafahansiisa ay arrintaasi ila dalku baahiyu qaba wax badan waa la qabtay horta su-aashaas waxaan jeclaan lahay qof wasaaradda ka socota inay weydiisa cawada ta labaad waxaan ku dhahay sovereignty-ga guudaa dhuminaya kuma dhigan taa si fiican u dhegaysatay in front of IMF iyo World Bank dhuminaan kuri haddana waxaan ka hadlay special paper warqadaas hore oo 3 sano gudahood lagu saxiixay ku saxiixa oo amarku yahay iyadaa noo ahaan kuri dhib waxaan kaloo kaa codsanaa inta yar intaan ka dhammaynaya in hal mar su-aalaha aad iga dhigtid waxaa laga yaabaa hadalka aan soo wada inaad jawaabta ka heli doontid waa mahadsantahay aan halkeena ka sii wadano maxay tahay marka dhibaatada hadda aan sheegnay oo sovereignty-ga soo gaarayso weliba waxay hogaamin doonaan ama iyagu ay go-aan xoog leh ku yeelan doonaan Somali natural resource khayraadkaaga dabiiciga saa u maanad garaynayso saameynay ku leeyihiin nin dayn lagu leeyahay hataa ilayn waa inaad soo saarto enough resources dadweynuhu waa qorshaystaan sanadka intaasaan soo saaraa sanadka dambe intaas saan dhaqaalayga maraad waaratan OPEC sicirka hoos u dhigto sacuudigu wuxuu yiri waxaa hoos u dhimay shidaalkaa soo saaraya adiga ma dhigi kartid inta ugu badan ee suuragalaad soo saaraya oo lagu amro ilayn dayna lagu leeyahay waa meesha aad ku dhuminaysa xuquuqda marka wadamada kale ay ku heshiiyaan inay hoos u dhigaan adigu waa lagu go'aaminaa adigu ha yarayna lagu leeyahay inta la doonaa aa laga soo saaraa tan kale waa inaad saxiixdo heshiiska fundamental human rightska heshiiskaas iyagu hadda shaqo kuma leh laakiin shuruuday ka mid tahay aninka dad muslim baan nahay shuruudaha qaar oo human right fundamentalka waxaa laga yaabaa inay ka hor imaanayaan diinteenna iyo dhaqankeena wadamada qaar qaybay saxiixaan qaybay diideen adiga fundamentalka oo dhorta ilaa saxiixdaa lagaa rabaa kow fakrigaa la dagaalamayaa tiri saad ula dagaalanto waa inaad bixiso daynta lagugu leeyahay si regular ah ma dhihi kartid hadda xaaladda igu xun halagu kaadiyo sanadka dambe aan bixinaa si wadamada kale aad wax ka qabto ay garantiya u haystaan inayna weynayn dayntoodii marka xaalad gaaraan ku jiraa ma jirto taasay ku dhacay marka si aad u bixiso kow waxaad ogolaanee social expenseska ina hoos u yaraysid lacagta dowladdu ama mushaaraadkeeda ama mashaariicaad sameyneed u qoondaysay aa lagu leeyahay dhin horta daynaa lagu leeyahay beeraha horumarina jiraan suubsana anaa u baaha waa social expense mayaa lagu leeya karaa
shaqaalaha mushaarka u kordhina uma kordhi kartid ilaa deyntan ay kaa dhammaato waa awooddaadii dowladnimo oo lagula qaybsaday maximum capacity waa inaad bixiso pay you are debtor regularly maximum capacity macnaheed maagta waa laguma joojinaa waxay kugu jiro waa inaan kaa siibtaan anaa kaa qaadanaa marka dayn waa ii eedaysantaa tan kale waxaa damaanad la siinoo hayaa wadamadii lacagta dayntaa laga qabay si degdega iyo inay garansiya haystaan inay regular loogu soo celinayo ayna ka dhumayn tan kale waxaa lagu leeyahay devaluation ku samey lacagtaada qiimaheeda hoos u dhig waa ogtihiin dowladda maxamed siyaad markii world bankii ayna soo galeen oo sacuudiga faranka bulutada ay jirtay lacagtiina qiimaheeda hoos u dhigaa layidhi si investmentigu u bato dhibaatadii naga soo gaartay gacankaa ku tegi dhibaato military dhibaato siyaasadeed waa jireen laakiin dhibaatada dhaqaalaha ugu weyn waxay ahayd marka reydka lacagteeda naloo gooyey oo madaxa lama tartami kartay okaada aan dhamaysto waxyar fadlan waa ii dhawaan rabtaa haddii siri awoodda lacagta qiimaheeda iyo sarifka ay naqanayso bangigaaga dhaxaa awood u leh awooddaas bangiga dhaxa waa laga ergada marka devaluation sameey aa lagu leeyahay waa inaad samayso shilinkaaga kor u socdo waxaa lagu leeyahay shilinkaaga hoos u dhig ilaa adaa saxiixday ma diidi kartid interestiga reydka ee soomaaliya kor ha loo qaadaa ku jirto interestiga soomaaliya reydka hadaa u qaado dadka gudaha ee bangiga lacag ka daysanaya wax maalgelin lahay ma maalgelin lahay marka reydka gudaha ku badis waa curyaamin kale oo indirect ah tan kale waxaad horu marinaya raw materialskaaga raw material waa bacdanta shidaalka waxaas intaa rabta kama dhigi karta macnaha badi si aad lacagaada ugu heshid lacagta adagoo la helana deyntaa lagu gudaa waa dhibaato kaloo jirto complete opening to Somali market suuqaaga waa fure maa suuqada adduunyada tariifaa jirto waa la iska limit karaya waxay aniga aan soo saaray inaa adiga iisoo iib geysa maa waa inaa iska celi karo oo inaa kan anaa gudaha ka soo saaro maya suuqaagu ha furaado wax kasta qashin iyo faalsi kulliba lagu keeni karaa marka waxaa lagu suuqaaga hadduu furan yahay lacag badanaa hele deynteyda dhaqsa ii siinaya haddii marba lagu yidhi marka suuqaaga waa inuu furo waxaa kaloo aad mamnuuc ah custom barrierka waxyaabaha customiska ama dekada ama aeroboortka ee barrierka ah ee lagu hakiyo canshuuraha waxbaad ku hakine in aad rabto inay waxaana waa dhiirigelina in laga qaataa rabtaa wax aadan rabin in lagu keenana limitations u sameeyne custom barrier ma sameey kartaa lagu albaab furo waa isbaara ma taala dekada aeroboortka mid sharciga ka hadla oo dhaqaalaha ku saabsan